بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلم وناكسن أرضي مقعي عبد القادر عبد الرحمن waxaan ku jirnay maadadeennii government and politics ee ka hadlaysay siyaasadda iyo dawladnimada fasalka afraad dugsiga sare form 4ka waxaan maanta ka wada hadlaynaa cutubka 8aad ee maadada government and politics ee dugsiga sare cutubka 8aad waxa loo yaqaanaa globalization ku waa cutubka 8aad insha Allah waxaan kaga hadli doonaa 13 oo waaweyn 10ka ugu horeeya wax ku saabsan doona introduction oo ah cutubka 8aad 10kiisa koobaad 10kan ujeedadiisu guud waxa weeye in la fahmo globalization waxa uu yahay iyo taariikhiyan sida uu ku yimi cutubka 8aad 10kiisa labaadna waxaan kaga hadli doonaa causes and consequences of globalization oo macnaheedu tahay waxyaabaha sababay inuu dunida ka dhaco globalizationku iyo cawaaqibka ka dhashay cutubka 8aad 10kiisa saddexaad ugu dambeeyana waxaan kaga hadli doonaa maxay tahay faa'iidada globalizationku leeyahay marka aan dib ugu soo noqdo globalizationku waxa uu yahay waxaan toos uga bilaabaynaa cutubka 8aad 10kiisa koobaad oo ku saabsanaa introduction to globalization introduction-ka marka aanu ka hadli doono insha Allah waxaan rabnaa maxsuulka soo bixi doona inuu noqdo saddex shay arday walba markuu 10kan qaato 10ka 8aad cutubka 8aad 10kiisa koobaad waxaan rabnaa koow inuu fahmo macnaha ereyga globalization waxa looga jeedo the meaning of globalization labo sidoo kale waxaan rabnaa inuu fahmo historical perspective oo ah taariikhiyan sida uu ku yimi globalization iyo ugu dambeyntii inuu ardaygu muujin karo fahmi karo respect iyo ixtiraamna muujin karo horumarka baaxadda weyn ee dhaqaalaha adduunku dhaqaalahan uu gaaray markii dhacday waxa loo yaqaan globalization iyadoo loo marayo globalization marka muhiimadda ugu weyn 10kan waxa waaye inaan fahano globalization waxa uu yimi waxa uu yahay iyo sida uu historically ku yimi ereyga globalization ilaa hadda looma hayo Soomaali bixin sax ah oo lagu turjumay laakiin ereyada ugu habboon loo soo qaadan karo waxa waaye inteenan gelin macnaha aan uga jeedno bal waxa fiirisaan Soomaali ma xoolo dhaqataa bal waxa fiirisaan xerada xoolaha lagu xareeyo adduunku ereyga galoob buu ka yimi galoob oo ah muuqaalka iyo qaabka adduunku u samaysan yahay haddaan adduunku qaabkiisa u soo qaadano xero oo kale xeradu waxa aad ogtii in leedahay adeegyo lagu xareeyo waxyaabaha xoolaha ariga yararka oo markaas maartay maqasha iyo wixii la midka indirgaha iyo hadii geelta kale sidaas oo kale ayaa adduunku waxa uu yahay qaarado walba ay adeeg gaar ku xiran tahay shanta qaaradood waaweyn qaarad kastana gudaheeda maxaa ku siyaala wadamo marka waxa jira kala qoqob dunidu ay kala xiran tahay sida xiradaas gudaheeda adeegyada lagu sameeyay ayaa adduunkuna wuxuu u yahay wadamo wadan kasta ay shuruucdiisa iyo xeerkiisa iyo nidaamkiisa iyo gaarka ay ganacsigiisa iyo arrimihiisa dhaqankiisa gaarka u qoqobay marka waxa dhacday adeegyadii inay isu furmeen oo dunidii oo dhan ay isu socotay dhaqamadii isu gudbeen dhaqaalihii isu gudbay ganacsigii isu gudbay wax walba ay maartay adduunku isu kala gudbeen arinta iyada ah waxa loo yaqaan globalization marka Soomaaliga ereyada ugu habboon adeegsan karno erbixin ahaan wuxuu noqonayaa adeeg fur tusaale marka adeegihii wadamadii sida u kala qoqobnaayeen ayaa isu furmay waxa kaloo ku macnayn karnaa ila fur ilihii dhaqaalaha ganacsiga dhaqamadii socodkii dadka waxyaabahaas oo dhan ayaa iyaguna dhacay oo adduunka oo dhan baa soo wada furmay marka globalization-ka markaan ka hadlayno ujeedada guud ah waxa waxa weeye adeeg furka ama ila furka ka dhacay dunida sida isugu furfurantay luqadda carabiga waxa la alama marka macnaheedu waxa weeye wax walba in la caalamiyeeyo oo standards laga dhigo dunida oo dhan maartay soo shaqeey maadaama adduunka oo dhan maanta uu yahay hal village isku noqday marka intaas aan ujeedada guud aan ka leenahay macnaha term ereyga globalization waa intaas adeeg fur ama ila fur saas oo kale globalization marka wax kala ma aha waa hanaan ay dadyowga iyo shirkadaha iyo dawladaha adduunku ay sameeyaan interaction inay adduunku u dhacay shirkadaha adduunka iyo wadamadii adduunka iyo dadyowga adduunkuba inay sameeyaan isdhexgalkaas oo inta badan ay riixayso dabada ka riixayso ganacsi iyo maalgelin iyo tiknoolajiyada iyo isgaarsiintu sahlanaatay waxyaabahaas oo dhan waxay abuureen inay dadyowga dunidu ay si fudud
isu dhex galaan hadday noqoto xagga dhaqamada hadday noqoto xagga ganacsiga hadday noqoto xagga siyaasadda hadday noqoto xagga macluumaadka iyo xogaha wadaagsiga marka taas waxa looga yaqaanaa globalization marka globalization wax kale maaha waa hanaan is a process of interaction and integration among the people companies and government of different nations waa a process driven by international trade and investment and aided by information technology waxa ugu badan ee sahlaya dunida oo sababaya inay dunida isu furantaan wax kale maaha waa tiknoolajiyada casriga iyo waxa loogu yeero isgaarsiinta casriga maanta way fududahay qofku inuu si fudud Mareykanka wax ka dhacay macluumaad ku helo marka just dhaqamadina si fudud bay isugu gudbayaan waxa kale oo fudud inuu qofku intuu halka ka tago within 24 hours Mareykanka ku tago marka isugu xambaarsan marka dhaqamadiisii wixii ama inuu ganacsi la sameyn karo halka ka tagayo China ka soo ganacsanayo soo noqonayo marka adduunka idin furka waxaan uga jeednaa waa sidaas globalization wax kale maaha waa hanaan dunidu iyo dadyowga iyo shirkadaha caalamku ay isdhexgal ku sameeyaan isdhexgalkaasna waxa u badan dawladda ka riixay sababaya wax kale maaha waa ganacsiga iyo maalgelinta wadamada isku sameeyaan waxa sahlayeen fududeynayaan waxa weeye waa tiknoolajiyada iyo gaadiidka kala qaadaya adduunka ku gudbinaya oo aad u casri ah sida maanta waxa laga yaabaa 100 sano ka hor inay adkayd qofku inuu qaarad ka tago qaarad kale u gudbo laakiin maanta aad halkan jooga 24 saac gudahood waxa laga yaabaa inaad shanta qaaradood si kala gooshto waxa sahlaya marka waa transportationka iyo telecommunicationka labadaas ayaa inta badan aad u sahlaya dhinaca kale marka ka fiirino globalization wax kale maaha waa process ay dunidu ay siyaaday isku tiirsanaanta iyo isku xirnaanta dadyowga dunida markay noqoto xagga siyaasadda dhaqaalaha ganacsiga iyo dhaqanka iyo xalamida marka waxa la yiraahdaa globalization waxa weeye wuxuu abuuray interdependency and interconnectedness macnaheedu tahay dunidu waxa la fahmay in aan la kala maarmayn maadaama aan kala maarmayn waxa keentay in dunidu ay u muuqato inay tahay one village waxa anu resource kan hayo adigu ma haysid anna resource ka haysid anu ma hayo marka isku tiirsanaan baa meesha timi waxa kale oo yimi ay dadku aad isugu xirmaan maadaama ay dhaqaalihii siyaasadii ganacsiga waxyaabahaas oo dhan ay siyaaday isku tiirsanaanteedu iyana qayb bay ka tahay dhinaca kale marka laga fiiriyo si kooban globalizationku waa habka dunidu ay u aragto inay noqotay global village tuulo yar oo ku taala meel sidoo kale dadkaas tuulada yar joogta ay isu kala maarmeen ama isugu xiran yihiin ama isugu furmeen xagga dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda ee tuulada yarta dadka jooga ay isku yihiin ayaa dunida maanta isku noqotay erebixinta ugu haboon in adeegsan karna marka waxa weeye idig furka adduunka ama ila furka adduunka riyadaas kala adeegsan karna af Soomaali ahaan globalizationka waxa nooga jeedo saan soo sheegay globalizationka waxa dhinacyada u badan u taabtay meelaha u badan u saameyntiisa laga dareemay dunida la isku furantay waxa weeye dhinaca dhaqaalaha siyaasadda dhaqanka iyo deegaanka arrimaha ugu waaweyn meelaha ugu badan dimensions u badan taabtay oo hadda markuu fahmayo dunida isku furantay waxa ka arkay dhaqaalaha isku soconaya caalamka ba waxa ka dareemaysaa dunidu inay aad isugu furfurantay oo qoqobkii iyo waxyaabihii kala xirnaanta dunidu ay meesha ka baxday sidoo kale siyaasadda ka dareemaysaa waxaad ka dareemaysaa dhaqanka waxaad ka dareemaysaa ecology-ga inaga hadda waa dareemi kartaan dhaqankeena sidoo maartay dhaqamada kale caalamka u saameeyeen marka maxay tahay waxyaabaha lagu garan karo inuu dunidu isu furantay in adduunka idin fur dhacay oo wadamadii dhaqaale ahaan siyaasad ahaan wax walba isdhex galeen isku tirsan yihiin maxaa muujinaya waxyaabaha lagu garanaya maxay yihiin waxa ugu muhiimsan oo muuqanaya markaba tiknoolajiyada oo ah transportationka gaadiidka iyo isgaarsiinta ayaa aad u kobacday oo calaamad u horeysa muujinaysa in dunidu isu furantay inagu halka joogna waxa ka faa'iideysanaynaa wax allaalay wixii resource adduunku yaalay waxa kamid ah internetka tiknoolajiyada kale oo hadda aan ka wada isticmaalino maanta inaanu casharka qaab online u qaadano waxay muujinaysaa calaamad waxa u tahay dunidu isu furantay waxaan resource aan adeegsan oo dhan wadamo kale ay soo saareen ama sameeyeen haddii adduunku kala qodqobnaan lahaa marka oo adduunku isu furmeen way adkaan lahayd xilliga inaan helno agabkan aadka maaragtay oo casriga ah inuu adeegsanayno labo calaamadda kale oo muujinaysa adduunku inuu isu furfurmay waxaa ka mid ah isu socodka dadka iyo dhaqaalaha hantida si isu soconayaan adduunku si isu kala gooshayo waxay muujinaysaa dunida isu furfurantay oo wax badan oo barrier waa caqabado badan oo jiri waagi hore in la khafiifiyey maadaama la ogaa dunidu isku xiran tahay isku tiirsan tahay saddex waxyaabaha kale ee muujinaya adduunku inuu isu furfurmay waxaa ka mid ah hoos u dhaca ama in hoos loo dhigay trade barrierskii wixii dagaalka labaad ka dambeeyay
caqabadaha ganacsiga ama hadday noqoto cashuuraha faraha badan la iska qaadi jiray ama wixii la midka ah shuruudihii adkaa oo dhan in la khafiifiyey oo hoos u dhac ku yimi calaamad kale muujinaysa marka maanta rabnaan China ka soo ganacsado wax badan oo barrier caqabado fara badan ma jiro maadaama dunidu ay fahantay isku tiirsanaanta waxay keentay in la khafiifiyo ama hoos loo dhigo trade barriers-ki caqabadihii ganacsi ima jiro oo dhan ama laga yaabo in cashuur yar lagu dhufto ama lagu fududeeyo wax alaale wixii kale oo ku fududeyn lahaa ganacsigaaga aad soo wax ka soo iibsatid waddankaas waxyaabaha kale oo muujinaya dunidu inay soo furfuranto waxaa ka mid ah waxaa soo baxay NGO-yo caalamka oo dhan ka hawlgalaya oo caalamka ula macaamilaya si inay maamulayaan ama caawinayaan hal village iyadoo waa calaamad kale waxaa kaloo calaamad ka mid ah shirkadahan waaweyn loo yaqaano shirkadahan ka hawlgala wax waddan iyo laba ka badan loo yaqaano multinational company waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha aad u muujinaya dunidu inay isu furfurantay waxaa siyaaday isu socodka badeecooyinka iyo adeegyada increasing flow of goods and service bayana aad u siyaaday oo adduunku u kala soconaya dad ka dekedaha iyo airboodada iyo yaabaysan wax caalamku u kala gooshaya marka arrimahaas oo dhan waxay muujinaysaa idig fur inuu dhacay oo dunidu isu furantay haddaan intaa kaga gudbo waa maxay globalization waxaynu rabnaa inaynu si kooban u dul marno the history oo ah markii la fiiriyo taariikhiyan globalization sida uu ku yimi adduunku isu furkani xilligu soo bilaabmay ilaa maanta heerku marayo dabcan idig furkan iyo globalization waxaynu ka wadno maaha wax cusub adduunku intuu jirayba waxba ganacsiba unba isdaafaya haba amountiga haba yaraadee laakiin wuxuun ganacsiya iyo wuxuun socod dadka ayaa jiray oo dadku ka tagayaan meelo fog ay aadayaan meelo maartay aad u sii fog tagayaan inta waddankooda ka taga wadamo kale inay ka soo ganacsanayeen ama u safariyeen dunida weligeed way jirtay idig furka lagu sheegayeen asaasku halkaas ka bilaabma laakiin idig furkan casriga waxaa saacidaya oo aad u fududinaya socodka inuu xawaarihiisu bato idig furku waa de teknolojiyadda casriga iyo isgaarsiinta wax badan sahlaysa laakiin weligeed way jirtay oo xilligii lagu jiray Silk Road-kii waa dareemi kartaan oo Europe iyo China ayaa maartay si kala soconayay oo ganacsi uu dhex maray laakiin modern age kan markii xilligan la joogo laga hadlayo globalization-ka inta badan wuxuu soo bilaabmay kan casriga modern kan ka hadlayno taariikhda casriga ee globalization-ka kacdoonka warshadaha ayaa loo aanaya inuu si xawliya maartay loo dareemay dunida inay soo furfurmayso oo dhamaadkii qarnigii 18aad ahaa waxaana keenaya mashiinada casriga ah xilliga kacdoonka warshadaha waxay awood siiyeen dadka in la soo saaro badeecooyin aad u raqiisa isla markaasna waxa la helay tareeno iyo doomo aad maartay casriga xilligaas kuwaas oo fududeeyay in socodkii ay aad xaddigiis siyaado markaas marka lagu baraarugo in la dareemo muhiim in adduunku maartay aad isku soo furfurmayo xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo wixii la midka ah dhaqaaluhuna badana siyaasaddu dhaqaalahan bay maartay ka dambeynaysaa faktorka qodobka ugu weyn ee adduunku markaba ka dareemay marka loo fiiriyo kuwa kale waa dhaqaalaha globalization waxa u badan ee adduunku u kala socday waa dhaqaalaha 1980-aadkii ayuu marka xawaaraha u badan sameeyay globalization-ku maanta aynu inta badan ka hadlayno ilaa haddana waa dood socota adduunku idig furkiisa iyo mafaa'iido ku jirtay mafaa'iid darra ku jirta iyo adduunku dood badan baa ka jirta oo inta badan culimada cilumtan ka hadasha ayaa dood badan ka qabta wadamo badan baa waxay qabaan in maartay aan wax badan faa'iido aysan ka helin iyagu oo la dhig miirtay kaliya adduunka kale ay maartay resource-kooda isticmaalaan laakiin iyagu waxay ka faa'iideen cagsigeeda kuwa badan baa faa'iido badan doodaas waa dood jirta weeye inta badanna dawladuhu wax badan bay ka faa'iidaan socodkaas markii dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo siyaasadda iyo wax la mid ah ereyga globalization markii uu horeysayba globalism ayuu ku yimiyo waxa dictionary lagu arkay 1968 meelahaas laakiin wuxuu caadi functional u noqday 1986 arday casharkeena koobaad wuxuu ku saabsanaa introduction labada qodob xoog saarayay oo ah macnaha globalization waxa uu yahay iyo taariikhiyan sida uu ku yimi marka intaas ku soo koobaya aad baan soo aruurinaya globalization waxaan iri taariikhiyan macna ahaan aad ayuu maaragtay meelo kala duwan lagu macnayn karaa laakiin macnaha ugu sahlan ee Soomaaliga inagoo dhaqankeena ka soo qaadanayna waxaan iri xerada xoolaha oo kale waxaa jira edegyo wax la yiraahdo oo xoolaha lagu xareeyo maqasha iyo wix la midka ama nirgaha hadii geel yihiin kale xeradaas sida ay u kala xiran tahay ayaa adduunkuna u kala xirxirnaa waayadii hore sida maartay la aaminsan yahay marka waxa dhacday adduunku inuu marka edgihii ay soo furfurmaan iyadoo waxyaabo badan ay sababayaan
marka af Soomaaliga ugu sahlan aynu adeegsan karno waxa weeye edeg fur ama ila fur iyo wixii la mid ah macnaha guud aan u jeedno waxa weeye waa hanaan ay dunidu isu furantay markay noqoto xagga siyaasadda dhaqaalaha ganacsiga iyo dhaqanka iyo wixii la midka ah waxyaabo fara badan baana sababay oo cutubka casharkiisa labaad oo ka arki doonaa waxyaabaha sababay dunidu inay isu furanto iyo waxyaabaha ka dhashay marka intaas markaan fiirino waxaan u soo gudbaynaa history-ga oo ah taariikhda globalization-ku sidoo ku yimi inta badan waxaan ri globalization-ka waxa u badan taariikhdiisu laba weeye globalization-ka xilligii hore iyo xilliga dambe casriga xilligii hore waxa la aaminsan yahay inta dunidu jirtay waa jiray globalization-ku waana wax jira weeye laakiin taariikhda marka laga hadlayo waxa laga hadlaa inta badan waa modern globalization-ka oo ah wixii kacdoonka warshadaha ka dambeeyay qarnigii 18aad inta badan marka waxaa loo aaneeyaa inay teknolojiyadda iyo isgaarsiinta casriga ay sabab weyn u ahayd in aad oo dareemo adduunku aad isugu furfurmayaan aad iyo aad baa mahadsantihiin arday waxaan rabaa 4 su'aalood inaad ka shaqaysan su'aasha horeysa waxa waaye markaad si fiican u soo akhrido waxaan ka wadnay globalization waxaan rabaa adoo isticmaalaya in your own words eriyada adigu aad leedahay inaad tacbiirisid oo aad qeexid globalization waxa uu yahay adiga fahankaaga labo waxaan rabaa inaad doodan geshid globalization wax cusubba soo wax waligi soo jiray doodaasna inaad wax ka soo qortid baan rabaa number 3 waxaan sidoo kale rabnaa inaad ka jawaabto su'aashan ah waxaad sharaxaad ka bixisaa oo si fiican u faahfaahisaa dabeecadaha iyo featureska iyo calaamadaha lagu garanayo adduunku inuu soo furfurmay idin firu dhacay maxaa muujinaya featureska su'aasha u dambayso ah waxaad taxdaa meelaha ama dimensionska ugu badan uu saameeyay globalization dunida markii maanta inay soo furantay maxaa meelaha ugu badan laga dareemi karo baa ayaa rabaa inaad taxdiid aad iyo aad baa u mahadsantihiin maalin wanaagsan